xilli uu jiro isqabqabsi iyo siyaasadeen ku saabsan doorashada labada gole ee baarlamaanka siibatan aqalka sare ayaa maanta mid ka mid ah haweenka siyaasiyiinta oo ah Caasha Axmed Cabdalla horeyna u noqotay wasiir ayaa sheegtay inuu jiro musuqmaasuq xubnaha sare ah oo lagu sameeyay gobolka Sanaag. Caasha Axmed Cabdalla oo maanta shirjaraayid hotelka Saxafi ee magaalada Muqdisho ku qabatay ayaa sheegtay in kuraasta gobolka uu lahaa ay ahayd 5 xubnood balse aan la siinin. أنا عبارينا مسق ماسك بحسن عبد الولي كراستي وكقاطي هلكن وحق أولها هاي قبلة وقوي وقاطي كبعدنا ويصور سدوا دور كيار وحنكروا عبارينا أقل كهوسة برلمان كبيشة محري راهدو دكتور قبل كسنة بيشة ورسنجلي أي كلها هاي شرح النور إن شنتي حبنات لربط قبيل كإن لجحوجي oo la rabo dad individuals oo iyagu ay maxal yiraahdo ay keensadeen sanadkii hore 2012 haddana ay rabaan inay ku musuqmaasuqaan xoog u sheegteen oo dadka qaar xirxireen oo dadkii maxal dhibaateeyeen dhibaatada waxa ku soo biiray hadda waxa ku soo biiray Jubbaland baa ku soo biirtay oo hal kursi ka qaaday maxal yiraahdo gobolka Sanaag aan xaq u lahayn oo waxa nasiib darro ah community-ga anaga noo degan meesha la yiraahdo Jubbaland aan laga talagelin dadkoodiina la diiday inay iska diiwaan geliyaan. waxa ay sheegtay Caasha Axmed Cabdalla in dawladda federaalka sida ay tiri ay cadaalad darro ku sameysay xubnaha aqalka sare iyadoona intaasi raacisay gobolada waqooyi sanadkii 1960kii 18 xubnood la siiyay balse xuquuqdaasi mar walba la daba taagnaa si looga qaado gobolada waqooyi oo 5 gobol ka kooban inay ka baxaan محلية دولة الفدرال كا إلا لجسحه خلالات كل سنين أو أقل كسرة وحنقول إن هاي الضباب وحنقول إن هاي سيدي طبعا مركل وقيتي 1960 تاسان الدستور كوكورا تاسانا أحسن كي المسلي قيمينتا وليبا قيمينتا قبلا تاسو وليبا أنا هين عدالة نوع هين مركز ونالبوي هذا أول جوه 2016 أيام السعودية إن حتى سيدي طبقة حبوا أن كل يران لهين أقل كسرة إن لغا قوستي تضبع حبنور لغا قوستي وليبا محل إذا يراد كوبي يتوان بعد ذلك وهذا لا يراد قيب قبيل بعضو قيب سنة إسلام وهذا فرقين لصمعي وقراست يدي أي بود دارس كسور قرطو ومحل يراد أن إن برتح قليل وحتح قليل أنا رسيم sidoo kale waxa ay sheegtay in dadka reer waqooyiga ee jooga koonfurta ay ku xaqran yihiin oo aanay helin xubnihii ay ku lahaayeen aqalka sare ay gabadh waqooyiga waxaan u taaganahay goboladii maxaa la yiraahdo maxaa la yiraahdo Soomaaliya waqooyiga ugu horeeyay ee qaatay xubnimada qaatay marnaba annaga identification ka iyagu ma noqon karo mid la duudsin karo kuraasteena waxaan rabnaa anaga u madax banaan in loo keenano rabnaa gobolka Sanaag wuxuu xaq u leeyahay saddex uu leeyahay maxaa la yiraahdo xaq uu leeyahay dad badan baa dega oo xuquuqda u siman oo u tartamaya waxa kale oo naga maqan kursi aan ku leenahay gobolka maxaa la yiraahdo bari aan ku leenahay sidaa darteed waxaan u soo jeedinaynaa beesha caalamka dawladda federaalka Soomaaliya oo xaqirtay midnimadii Soomaaliyeed oo xaqirtay dadkii midnimada Soomaaliyeed u dagaalamayay oo maxaa la yiraahdo ka rartay maxaa la yiraahdo dhinac ka rartay cadaalad darradii dhinac ka rartay ayaan u soo jeedinaynaa inay ka waantoobaan soo celiyaan 18 iyaga xubnood haddii aanay soo celin waxay noqon doontaa in maxaa la yiraahdo aanu qaadano decision kale oo aan loo baahnayn oo maxaa la yiraahdo already wadadka qaar ay sameeyeen already ay banaanka ka taagan yihiin intii kaliya hayda u dagaalamayay midnimada haddii xamar lagu xumeeyo ama kuraastoodii dad kale la siiyo lagu abaal marinayo haddii waxa weeyaan Soomaaliya waxa weeyaan cadaalad darradii shalay la tirsanayay baa haddana socoto marka waxa weeyaan cadaalad darradu mar walba way soconaysaa marka haddii cadaalad noqonayso iyo haddii khalad noqonayso annagu waxaanu leenahay waxayna waanu u fadhinaa waanu qaadanayna annagoo wada jirno reer waqooyiga oo aan qof naga maqnayn baanu 18 kursi aanu rabnaa
ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca dowladda federaalka oo ku saabsan eedeymaha iyo cambaaraynta ay soo jeedisay Caashe Axmed Cabdalla. xiriir iyo isku day arintaasi ku saabsan oo aanu sameynay kuma guuleysan in aanu helno saraakiisha wasaaradda arrimaha gudaha oo arrinkaani quseeya. Ibrahim Maxamed Xuseen, Ibrahim JK, wararka STN, Muqdisho.